waxaa intaas ku xigtay waad ogtihiin oo muddo dheer qaadatay iyadana qayb ka ah sovereignty-ga Soomaaliyeed oo u baahan in siyaasad lagu xaliyo u baahnayd in siyaasad lagu xaliyo waxay ahayd murankii badda annagu aan gelinay oo aan la galnay Kenya oo ay Kenya aamintay inaan baddi siinay aan u sii deynay oo aan u sii deynay Kenya oo ay meel walba ku qortay memorandum of understanding loo saxiixay taasoo runtii culays badan aniga khaasatan ugu ahayd oo pressure aanan sahal ahayn ahaa oo hadday tahay mid siyaasadeed oo dee lagu handadaayo oo lagu sheegayo inaad tabar yar tahay oo leverage badan lagaa leeyahay oo lagu dhibaateyn karo si aan dib uga noqdo badda mid dhaqaale iyada naftigeeda iyo mid siyaasadeed basaan sheegay oo ah xitaa in meelo la soo marsiiyey in election xitaa lagala shaqeynayo si aan u soo noqdo in return aan ku bedelayo baddaas inaan dib u soo celiyo handadaad waa idin sheegay oo xitaa la gaarsiiyey in toos fargelin qaawan ee Kenya lagu samayso hadday tahay cirka iyo hadday tahay dhulkaba oo aan meel kasta ka dacweynay ilaa markii dambe ay nagu abaabushay jabhad ilaa 800 gaaraysa xuduudka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya iyadana aan si wanaagsan aan ku soo afjarnay guulaha ka gaarto ciidanka xoogga Soomaaliyeed intaas oo idin waxay ahayd wax siyaasad u baahnayd oo lagu ilaalinayo qarannimada iyo madax bannaanida ummadda Soomaaliyeed waxa intaas dheer dawladaha dariska ah markay xuduudahooda ay damcaan inay kala dhistaan oo ay silig ama darbi ku wareejiyaan waxaa la saaraa guddi border commission yiraahdo dawladda Kenya waxay bilowday inay samayso xuduud shub ah ama dhagax ah annagoo aan wada tashan oo ka heshiinin arrintaasna waxa weeye wax sovereignty-geena taabanayo weeye maxaa yeelay ma naqaano xariiqda la dhigaayo soodinta la dhigaayo ma naqaano oo laga dhisaayo dawlad markaan ka hadlayna qaranna waxa weeye waa wadaniyadda weeye taas weeye tan shacabka qabkooda iyo dareenkooda kor u qaadi kara siin kara xushmad iyo karaamo siin kara markii maamulkooda ama hogaankooda uu leeyahay hadaf wadaniya ama patriotism uu leeyahay qaranka in la ilaaliyo siyaasadda haddii lagu ilaalinayo iyo haddii la difaacayo midnimada ummadda in la adkeenayo ama midnimada ciidanka la adkeenayo oon ciidanka loo kala saaraynin heeb iyo maamul wanaag